kulanti wanaagsan daawadayaal saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan rabo inaan uga hadlo sidee qofku shakhsiyadiisa ku horumari karaa personality-ga qofku sida uu ku horumari karo personality-giisa iyadoo tayo badan iyo wadooyin badan la oran karo waa lagu horumari karaa haddana waxaan rabaa wado yar oo kooban oo aan filayo insha Allah inay wax badan ka bedesho personality-gaaga inaan inoo soo bandhigo insha Allah kow marka la rabo qofku inuu personality-giisa ama shakhsiyadiisa uu horumariyo una rabo inuu shakhsiyad wanaagsan ay noqoto waxaa looga baahan yahay qofka inuu aqoonsado marka hore garto shakhsiyadiisa iminka seebay tahay ama muxuu yahay inuu garto kan uu yahay isagu hadda iyo waxa uu rabo inuu noqdo labadaa inuu aqoonsanaado qofku marka koowaad uu garto kumaan ahay hadda kumaase rabaa inaan noqdo berrito qodobka labaad waxaa laga rabaa inaad markaa taad ogaato aada go-aan qaadato ama ficil la timaado si aad ula timaado isbedel qofku marka uu yaqaan meesha uu joogo iyo mataqaan xaaladda uu ku sugan yahay wuxuu samayn karaa isbedel inuu digarogasho sameeyo marka waxaa laga rabaa markaad samayso actionkii la timaado inaad isbedel la timaado inaad joojiso haddii aad markii hore samayn jirtay inaad isbarbar dhigto shakhsiyad kale qofku markuu rabo inuu personality-giisa horumarka gaaro waa inuu joojiyaa combarinka uu iskula samaynayo adresskiisa ama dadka kale ee dhiggiisa qodobka afraad qofku inuu aqbalo shakhsiyadiisu inuu aqbalo yaqaana taybka shakhsiyadeed uu yahay qofkaani kuma tahay noocee u dhaqantaa waa inuu is yaqaan waana inuu isku aqbalaa nooca uu yahay qodobka shanaad waxaan oran karaa qofku waa inuu la yimaadaa mataqaanaa dadaal si uu u noqon lahaa qof positive waa inuu qofku sameeyaa mataqaanaa uu la yimaadaa interaction uu dadka kale la sameynayo adresska ama dadkiis kale ee dhiggiisa ah waa inuu la yimaadaa hab isdhexgal uu sameynayo qofku markuu intaa la yimaado waa inuu muujiyaa kalsooni uu isku kalsoon yahay isagu shakhsiyad ahaantiisa oo kalsooni uu isku qabaa naftiisa waa inuunan oran hebel baan ku dayaynayaa hebel baan rabaa inuu halkaa i gaarsiiyo laakiin inuu yidhaahdo yes I can aniga awooda anaa tegi kara halkaa markaas wuxuu noqonayaa shakhsiyad wanaagsan insha Allah waxaan rajeynayaa 6 qodob inay noqdaan qodobo ina wada anfaca si aad shakhsiyadaada wax uga bedesho raac tallaabooyinkan si aad insha Allah muuqaalo dheeraad u heshona subscribe saar